Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal, ku soo dhowaada barnaamijkeena maanta oo aynu kaga hadli doono qisada aasaaska shabakadda Khan Academy. Balse intaynaan bilaabin barnaamijka, daawaday haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir. Sina sheer gare barnaamijka si uu gaadho saaxiibo kale oo danaynaya in ay warbixinaha noocan ogaadaan. Khan Academy waa shabakad waxbarasho oo inta badan dadka majaalka waxbarashada ku jira ay yaqaanaan. Waxaa markii ugu horreysay lagu bilaabay culuumta xisaabta iyo injineerinka, ilaa markii dambe ay ballaaratay oo ay noqotay shabakad laga helo culuum kala duwan sida culuumta sayniska ee physics-ka, chemistry-ga iyo biology-ga, iyo culuumta dhaqaalaha iyo juqraafiga iyo taariikhda. Waxaanay badanaa caawisaa ardayda laga soo bilaabo dugsiyada hoose dhexe ilaa jaamacadda. Shabakaddan waxaa laga helaa muuqaalo gaagaaban, assignmento, layliyo iyo waxyaabo badan oo kale ardayda caawinaya, kuwaasi oo si bilaash loogu baahiyo baraha internetka. Aasaasaha shabakaddan ayaa waxaa lagu magacaabaa Salmaan Amiin Khan, oo la soo gaabiyay Sal Khan. Waa muwaadin Amerikaan ah, balse asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa Asia oo waxaa iska dhalay aabbe Bangladeshi ah iyo hooyo Indiyaan ah. Waxa uu dhashay 11 Oktoobar 1976, waxaana uu ahaa macallin xisaabeed. Wuxuu sidoo kale dhigi jiray injineerinka iyo cilmiga tiknoolajiyadda. Shahaadadiisii heerka labaad wuxuu markii ugu horreysay ku qaatay cilmiga maamulka iyo maareynta, taasi oo uu ka qaatay jaamacadda Harvard ee Mareykanka. Haddaba, daawada maxay tahay qisada iyo fikirka aasaaska shabakadda Khan Academy? Bilowgii hore 2003, Sal Khan waxa uu caawin jiray gabadh uu adeer u yahay oo lagu magacaabo Nadia, taasi oo uu casharada ugu muraajacin jiray gurigooda. Gaar ahaan waxa uu ka caawin jiray maadada xisaabta oo aad uga adkayd Nadia. Markii dambe waxa uu bilaabay inuu hab online casharada ugu gudbiyo. Waxa uu duubi jiray muuqaalo gaagaaban oo uu ku sharaxayo oo ku fahansiinayo casharada ay ku baratay iskuulka. Nadia markii ay ku wanaagsanaatay casharadii uu ka caawin jiray Sal Khan, ehelada iyo qaraabadiisa ayaa sidoo kale ka codsaday inuu caawiyo carruurtooda. Ugu dambeyn, Sal Khan waxaa ku batay tirada carruurta uu ka caawinayo waxbarashada. Waxaan u go'aansaday sanadkii 2006 inuu kanaal ka furto YouTube, halkaasi oo uu soo gelin jiray muuqaalada iyo casharada uu ka caawin jiray carruurta. Kanaalkiisii YouTube waxa uu noqday mid aad loo daawado oo arday badan ay ku soo biirto. 2008 waxa uu aasaasay Akademiyadda Khan, taasi oo lacag la'aan ah. Ugu dambeynna 2009 waxa uu iskaga tegay shaqadiisii caadiga ahayd, waxaana uu faaruqay ka shaqaynta iyo horumarinta Khan Academy ilaa ay noqotay mid caan ah oo adduunka meel kasta laga yaqaano, aqoontiisina ay gaadhay. Bilowgii horena shirkadda Google ayaa ku tabarucday $2 milyan si uu u horumariyo shabakaddan. Sidoo kale, Melinda Gates ayaa $1.5 milyan ku bixisay aasaasidda akademiyaddan. Arrinta kale ee la yaab kale ee laga yaabay inaanad ogeyn ayaa ah in Khan Academy uu ku baxo ilaa 40 luqadood oo ay ka mid yihiin luqadii lagu bilaabay ee Englishka, Carabiga, Hindiga, Bengaaliga iyo Turkishka, iyo luqado kale oo fara badan. Sidoo kale, Sal Khan waxa uu sameeyay qayb u gaar ah carruurta yaryar ee u dhaxaysa 2 jir ilaa 7 jir oo lagu magacaabo Khan Academy Kids. Ugu dambeyn, waqti xaadirkan kanaalka Khan Academy ee YouTube waxaa ku xidhan ilaa 6.83 milyan oo qof, halka daawashada muuqaalada Khan Academy ay ka badan yihiin 1.9 bilyan oo jeer. Daawade, marnaba ma ka faa'iidaysatay casharada iyo muuqaalada la soo geliyo Khan Academy? Mise ku tala jirtaa hadda kadib markaad macluumaadkan aad ogaatay inaad ka faa'iidaysan doonto?